khudbadda mambarka isagoo khudbadaynaya nin acraabiya isdhex taagay dadku dhexdii oo yidhi rajulun ghariib baan ahay jaa'a yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuhu nin ghariiba ayaanaho diinta islaamka ku cusub oo u yimidee diintiisa islaamka inuu wax kaa weyddiiyo khudbaddii jumcada intuu nebigu joojiyey ayuu ka dhaadhaco ninkii halkiibuu ugu tegey kursigii baa la daba qaaday nebiga calayhi salaatu wassalaam mas'aladuu raba inuu nebiga weyddiiye markuu weyddiiyey uu u dhammaystiray ayuu nebigu soo noqdo khudbaddii buu nebigu dhammaystiray waa mucallim haddaad mucallim tahayna mahalkaagu waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam mahalulaclaa ciddaad ku dayanayso waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam haddaad qaa'id ummadeed aad tahayna u fiirsa dulqaadka nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam nin reer baadiyo acraabiya ayaa nebigeennu saxaabadiisu hareeraha ka socdaan gadaal intuu kaga yimidday ayuu cimaamaddii go'i nebiga hunguriga kaga qabtay markaasuu weliba hadal adag ku yidhi xoolaha ilaahay agtaada uu dhigay adiguna ma lihid awowgaa cabdulmutalibna male nasiibuu ka yidhi intuu nebigu qoslay buu ku yidhi siiya buudha 100 halaadoo geela isagana la siiyey xaakim haddaad cid ummad taladeeda aad haysid ama magaalo xakum ama waddan xakum ama tuulo xakum ama tala reereed hay cidda aad ku dayanaysa waa nebi maxamed waa mahalulaclaa dhinac walba waxa uu nebigu bashariyadda u yahay mihaalkii u sarreeyey lagu dayanayay inaad ku daba liibaanta mooyaane ku daba khasaari maysid abadan limaadaa la'anna ilaahay baa yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed aad raacdaan ood ku dayataan waad hanuunteen baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala saxaabadu ninka inay gacan ula tegaan bay ku hamiyeen walaakiin nebigu uu dhoolla caddeeyey intuu qoslay saxaabadii cadhadii buu ka baabi'inayaa markaa buu nebigu isaa intuu ege buu qoslo wuxuu ku yidhi war waxa uu doona siiya buu nebigu yidhi kaxeeyo baytalmaalka geeyo oo siiya buu yidhi haniimadii gaalada laga soo qaaday buu nebigu sidaa u qaybinayey kan intaas siiya nin acraabiyo reer baadiyaa ayaa saxaabada isdhex taagoo qayliyoo yidhi wallaahi qaybtan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina looma bixin buu yidhi hadalkaa cidda lagu leeyahay waayo waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam balu fiirso dulqaadka nebigeenna eeg siduu nebigu ummadda iskugu waday eeg qismaddan la qaybiyey laguma cadaalad samaynin ilaahay dartiina loogama jeedo hadalkaa ninka lagu leeyahay maaha shakhsi kale waa nebi maxamed markaa cabdulaahi bni mascuud radiallaahu canhu ayaa maqlaayey markaasuu nebiga u tegey calayhi salaatu wassalaam markaa buu nebiga u sheegay markaabaa wejigii nebiga ayaa markiiba doorsomoo isbeddilay markaasaa nebigu yidhi hadday ilaahay nebi maxamed caddaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo caddaalad samayn buu nebigu yidhi soo qabtoo ninkaa xidhi nebigu ma odhan isbarbar dhig madaxda zamankan ummadda taladeeda haysa waddankay doonay ha joogaan iyo qaa'idulacdam qaa'idkii weynaaya ummadda hoggaankayga ilaahay noogu dhiibay halkay kala joogaan bal isku eg saasuu eegay nebigu sal alla alay slam markaasuu yidhi ilaahayo nebi maxamed hadday iyaka caddaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo caddaalad samayn kara buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu yidhi walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badanba waa la dhibo uu sabray buu rasuulku leanna qur'aankaa nebiga qabanaayey qur'aanku waa usuulu dacwa usuusha dacwadda qur'aankaa laga bartaa qofka muuminka waxa xakamaynaya waa qur'aanka weeyaan haddaad cadhooto qur'aanka ku noqo haddii lagugu gafo qur'aanka ku noqo haddaad talo ummadeed kaa gurracanto qur'aanka ku noqo waa inaad noqotaa marjacaaga waa inuu ahaadaa qur'aanka limaada li'anna qur'aanku waa kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala caddaalad dhammaystiran baa qur'aanka ku dhammaystiran waa maxkamad caddaaladoo dhammaystiran markaa buu nebigu yidhi walaalkay muuse calayhi salaam waa nebi muuse intaa in ka badan ba isagana waa la dhibo uu iska sabray dee anigana waa sabri bay ka dhigan tahay markaa wax kale iima yaallo sabirunbaa ii yaallo weeyaan sabir badana dulqaad badana nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dulqaad mas'uul isagoo ummad taladeeda haya ka daciifka ka qawiga ka ilaahay adeecaya
ka cibaadadiisu naaqis ka tahay ka xaqa ilaahay ilaalinaya ka xaqa bini'aadanka weli aan dhammaystirin ka akhlaaqda wanaagsanne ka akhlaaqdiisu ay liidato ka diinta ku fiican ka diinta weli ku dhaqankayga ku fiicnayn intaba nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu isku waday nebi rasuula waa la ikhtibaaray toddobadii hablooduu lahaa mar keliya laga wada dilay oo nafta laga wada qabtay uu iska sabray toddobadii wiiluu lahaana mar keliya israaceen uu iska sabray beerihii iyo tijaaraddii iyo xooluhuu lahaayoo dhan mar keliya laga qaaday uu iska sabray markaasaa jidhkiisii welibana xanuun lagu riday uu iska sabray xanuun nuuceeyaa gaadhay waxaa la yidhi jidhkii intuu dhammaaday harigga iyo lafahaas ku dheggan bas markaasaa wax ehela waxa u soo hadhay xaaskiisii markaasay qaraabadiisii ku yidhaahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama annagu aan kaaga baxno may anaa inaga fudud oo iniga tegaya buuri way tukubisay bannaankaabay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culummada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tegaysay magaaladay u soo noqonayso dadkay u shaqayn jirtay aqalladay ka shaqayn jirtaa la yidhi wixii mushqaayad la soo siiya intay ugu soo iibiso khubs iyo idaam ayay markaa nebiga ugu keeni jirtay geedka hoostiisa markaasay ku tiraahdaa ayuubow xanuunkan halkaa ku gaadhsiiyey in ummaddii iyo dadkeennii ay bannaanka inoo soo tuuraan nebi ducadiisa la aqbala ayaa tahee ilaahay maad noo baridaha kaa qaada xanuunkan oo dadkaan ku dhex noqonnay markaa buu ku yidhahdaa 70 sanaan barwaaqo ku soo jirnee ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yidhi barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysanno ayaa badan mise inta dhibaatadu inagu dhacdo ayaa badan midkaa badan nicmadaa badan marka ambiyadu nicmadday eegayeen mar walba deedna muncimka markaa way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen markaa buu xaaskiisii ku yidhi 70 sanaan barwaaqo ku jirnee baa muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha ka mid a labadii dad isaga ugu dhoweedee qaraabadiisa ah ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yidhi mid baa yidhi markaa war u dhowaani mayno xanuunkiisa inuu nagu soo tacadiyaan ka baqaynaaye malaha dembi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin eraygaasuu markaa nebi ayuubuu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurguurtay deedna meeshuu ku xaajoonayay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaabuu uga dhaqaaqay halkaabuu markaa ku ducaystay baa la yidhi ducadiisana waatan qur-aanka ilaahay noogu sheegay في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ربي جيبه أدواقي وربي جيبه لما ناجوده أقيل داندرتو مركبه وحيري إلا وحني قد نبا إسوء قادو إتابته أدقونا كوان نحرس لك وقلنا حرس مداماته إلا ونبقى إيقا قادبو يري إلهي مركبه دعاء دي سواك أقبلي بالي halkii uu joogay baa lagu yidhi lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay oo xanuunsanaa awoodda jidhkiisa ku jirta ee dhulka markuu harraatiyey biyo uu kaga keeni karaa waa awoodeen yacni adagu asbaabtii la kaalay weeyaan annagaa biyaha soo saarayne lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayno oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jidhka bini'aadanka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysaan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheennu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamkaa maamulaysa lugtii buu nebi ayuub saa u dhaqaajiyey dhulkuu ku celiyey labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yidhi laba iloodoo biyaa ilna waxaa la yidhi ku maydho ilna waxaa lagu yidhi acab uu maydhay jidhkiisii waa cadi uu cabbay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhanba bannaanka uga soo baxay uu soo kacbay mar keliya xaaskiisii baa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo 12 sana halkaa aan la joogay oo maanta aan ka tegey magaaladaan ugu maqnaay oo aan u shaqo tegey miyuu dhintay
ma dugaag baa qaatay weliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaaye formigiisii baad leedahay markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub kii aad kaga tegtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii waan ducaynay ducadii baa ilaaha noo aqbalay istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha saciid ibn zayd radia allaahu canhu islaam baa ka soo ashkatootay maxay kaga soo ashkatootay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cuثmaan binu cafaan amiirka mu'miniinta u yeedhay saciid waa 10kii jannada loo bishaareeyey nin ka mid ah saciid ibn zayd abalacwar markaasuu waa laga soo dacwooday saciidow wayaa ka soo dacwooday islaantaa baa kaa soo dacwootay duqda oo maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay ayaa la leeyahay oo macal ceelka iyadaa leh yaa amiir almu'miniin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa 7 dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelinoo la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad ha dilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dhulkii uga kacay ha qaadatay buu yidhi siiya waa indhabeesha dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegaysoo indhala ayay ceelkii ku dhacday bale ceelkii bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigayga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadanku ciyaar maaha ma anuu nebi maxamed ka maqlay taaka in la egoo dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata 7 dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguna ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay cuثmaanu inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buuhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu waxaase waa alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhare inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badheedhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro ninbaa culammadu ka sheekeeyaan xajku u soo qasday markuu ixraamkii markuu xidhay ee uu soo dhaqaaquu xujiijkii dadkii xujaydii uu soo raacay ayaa waxaa la bilaabay markaa talbiyaddii baa la bilaabay labbayk allaahumma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk markaasaa korkiisa laga leeyahay laa labbayka walaa sacdayka xajkaaga iyo safarkaaga aad u soo dhaqaaqday ilaahay kaama aqbalayo lagamana aqbalin dushiisa laga dhawaaqayaa markaa mid ka dambeeya la maqashiiyey kii baa joojiyo ku yidhi iska hadh maxaanu hadhaa buuli ma maqlaysid jawaabta maxaad maqashay markaad tidhahdid labbayk allaahumma labbayk korkaagaa laga leeyahay laa labbayka walaa sacdayka xajkaaga iyo cimradaada iyo sacigaaga iyo safarkaaga lagaama aqbalin baa lagaa leeyahay ma maqlaysid iska hadh haysdaalila lacagtana iska hayso qarashkan inuu kaa bixinay markaasuu yidhi maad maqashay haa haddaba anu maanta oo keliya ma maqal buu yidhi 7 sano
oon hore u xajiyey jawaabtaa waan maqlayaa buu yidhi laakiin ma hadhaya buu yidhi waayo halkaa haddaan ka tago haddaan ilaahay ka hoos dhaqaaqo oon isaga mar walba aan weydiisani waayo inuu toobadda iga aqbalo halkee kaloon tagaa bal ii sheeg buu yidhi ma haysaan meel kale ma jira haddaan albaabkiisa garaaci waayo albaabkee kaloon garaaca bal ii sheeg markaas wallaahi ma jiro bas iska kaydaa buu ka yidhi anu kaa un baan halkaa un baan joogaay ma dhaqaaqaye u bilaabay xajkii baa la gaadhay dawaafkii buu sameeyey dawaaf alquduum labayk allaahuma labayk yarkiina uu daba socdaa uu dhegaysanayaa waxuu ka maqlay korkiisa oo laga leeyahay labayka wa sacdayk waan ku aqbalay dawaqaagii waan ajiibay xajkaagii waan aqbalay 27kii xajii hore aad u xajidoo dhanna waa lagaa aqbalay dembigaagina waa lagaa dhaafay xaquusan قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حقوسا رحمة يسوع الله سيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافة الإسلام كمركي اللو ديبي ومركو النبي قد جوده كي انتقال صلى الله عليه وسلم وحوها بقاش لوها بركة يبدا عبد السوق كو يبي جرال لي ألابتي يسيبو قاتو دكتو صارتي عمر بارك نيكو سيسعودها قال يا أبا بكر إلى أين؟ حولي دواشقتك يا وطلدي أمد دوردن بعدك مدح لغا ساري مدح ليلي oo reerkayga ayaa ii bilin soo anu ka mas'uul mayo ilaahay weydiin maayo muslimiinta oo dhan baa looga dhigay mas'uul madax khaliifata rasuulillah weeyaan mas'uuliyadda uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigin isagu innaka maanta ka warrama ninka markuu mas'uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay muxuu socdaa waa lacag fiican heeshid meelahaana si fiican ha u jajabsatid ila waa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walba iyagu sidaa ma ahayn mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayey waa adeeg ummadeen ummadday u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo abubakar wuu yaabay war ciyaalkayga reerkaygana ma haleelaysid masaariiftoodii anaa ka mas-uuleen anna kaa shuuraynaynay adu noqo horta halkaa fadhiiso ma haleelaysid haddee toole waa la shuureeyey waxaa loo shuureeyey maadaamuu 4 reer u lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan 2 sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu riday abibakr sidiiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiraxmaan ibni abibakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bin cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku waddaa jooji wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta wax adduunyaha maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina dhulkaa iibiya lacagta ka soo baxda dhulka 2 sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi intay nii soo hadhana innigu dhaxal u qaybtaba buu yidhi cabdiraxmaan bin cawf uu yaabay war maxaad leedahay aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagtaa lagu celiya halkee baytalmaalka oo siduu u qaatay waa masaariiftii inninku aad u qorteen uu reerka siinayay 2 sannadood ayuu aabbahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinnayna waxau nagula dardaarmay lacagta in halkaygii lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo
عمر بن الخطاب بالله كان عمر وهوي أبي بكر الصديق وبيقول أبو بكر وقبري أبو بكر بدل تقع عمر وعود ما دحذا هذيك الدبدا إيمان إيسا والله واد دالسوك وقاري من بوكير وادنا دالسين بوكير صدان أولينا يا أبو بكر وقلت إذا وادنا دالسين بوكير لبدي السنة دور كي بلادو ثلاثة أمته هيي وأنك يدي عليه بيت المال كإنتاس حكام الزمن كأنك ورما بعاصي محاكيني والله كبق إلهي بك عبسنيين آخرة يكون حساب تميين مركاسا كوغي مدحاها حق إلهينا وإلى لي حقوق دي بني آدم كان أساسوس كغا إلى لي كوغي فقير كاها حق إلهينا إسلوس كإلى لي حقي دد كان وسك إلى لي